إلا حالة كلا عن يعني شيء إنه أما ما دركت أوران إن حالة عين كاسو كلا أي مدقال ما من الصبح مركل لقدو دي إسكا أرورستين إسكا صوفيين إيدادن لا دان ما دركتي أو أرور جينينا إن إلا دحدو دي لوجي ما بيرت حاجة واتقرنا يسوا قرف ودق مدى دايمات ويان قرفنا ما دركت بركعة جوجي حوله ها أوكي وما صنتها عدكو قايا باللي هي يعني كلي وإسكني تركيا نقول كرتا لكن أنا عادي بيجو سعدا هذا دي مقلسان هاي سوقرة واحد أركيسان رجع ما دركت فدرالك مركي هرنا سوبرك عيادتك يجو حين وعدات إنه يجو السيد الصحة وصو قلم بدقالك شالي طالع أي دادين أنت يجوي ما دين دقمة قرف إن دقمة الديمات سادو تقانتين قرف بيرت حياتي ميلا ده أو ما دركت دح أكتيدو دعوة دي اللي يدادو إن أي مادين أي ليهين كما عبسان كريسين مركي شعب كويدية ريسن كان أنا وحبوه ما عبسان كريسين أن ليهين أما ما ورا بيسي ما ورا ما عبيان يعني لا أضاني أي ليهين maxay tahay markii la yidhina waa inay qasab xoolaha canfartuna halkan maadiina wax ka caba see uga imaa sideentay garbacaysa uga imaadin looda canfartu ay uga cabaysaa bal ii sheega ma aragteen qaraf oo waliba ma aragtay beerta xaajiga waa halkay ku soo barakaceen waxay kaga imaadeen war waxaan leeyahay shacabku haduuna istifaacin odayaashan waxay soo qaateen qandaraas in qarafna nigala soo barakaciyo toos af casan iyo la keeno war kale ma jirto because waan aragnaa asasaayahay u socdaan odayaashan iyo ma aragtay caadaqayaashan waa ma santahay abti waxaan aragnaa in ay caadaqaadayaashan ma aragteen iyo odayaashan afar ku dhiiglaha ay u soo saxeexeen qarafna waxay cadeynaysaa shalay haduu federaalku imdu 200 oo neef in ka badan uu qaatay maxaa la sugayaa marka 7 nin iyo ma aragteen ay xoolahoogina la kaxaysto hor dhaqaaqa leedo ilaa aawaas lagu xareeyay maxay tahay marka waxaan anagu rabnaay waxay tahay iyo waxaan iyagu ay rabaan waxay tahay ismaba laba waa ciriyo dhulba ilaa qaraf haday inoogu yimaadeen federaalku ay 7 nin naga kaxaysteen oo xoolahoogina kaxaysteen 200 in ka badan hadaad rabtaan ma aragteen shacabku way nigu sheegaya laakiin waxa idinka nigu waajib ah shacabku inuu istifaaco tani ka kaco tan inaad ka kacdaan oo ma aragtay iska daafacdaan inagay waajib nigu tahay shacab haduu tan ka baraarug waayo tan qaraf shalay ka dhacday af casay imanaysa bikiba imanaysa abdanba imanaysa erar bay ku soo dambeyn doontaa hadaladoodii baa sax noqon doonta raggan marka waxaan leeyahay shacabka gobolka city inaad soo jeedaan xarigan iyo tacadigan iyo waxan waa tusaale inagu la soo socdaa ay dawladuna ogoshahay in ma aragtay inaga afkan la qabto xooliin iyo dhulkiina la ilduufsado marka waxaan leeyahay inaad ka baraarugtaan oo soo jeedaan ayaa ka qurux badan midda kale waad arkaysaa waxyaalaha socda deegaanka ee la leeyahay afarta qodob uu ma aragtay madaxweynuhu soo qoray inuu isagu dib u sameeyo argoosi inuu u fadhiyo imika maanu sheegin mar hore sheegnay laakiin waxay cadeynaysaa argoosigaas intuu soo dhaafay heer deegan inuu heer gobol inuu heer ma aragteen dhulkii garbaciisi cundufiya cadeyd intii la dhaafo waliba qaraf la soo galo oo laga xoolahaas laga qaato ay waliba iyaguna intii ma aragteen loo xil saaray meesha amooleyti ka ahaa degmada gudoomiye ku xigeenkuba dakhli ururis u baxaan ayagoo dagaal ku socda taasi ma aragteen waxay ku cadeynaysaa in ma aragteen iniga la faa'iideysanayo oo ma aragteen dhulka sharciyadiini iyo dakhligiini iyo lacagiina intii nigala urursado inigana la leeyahay we don't care about waxaad inigu wadwadiinba ama dhulkiina hala qaato amba hala daa because waxaad arkaysaa dad u soo jeedin waxaan iniga nagu dhacaya waad arkaysaan walaa dhalinyar ha noqoto oo ma aragtay iniga matalaana 2% bay urursadaan la yiraahdo walaa odayaal afar ma aragtay koofiyad ku dhiig laha noqdaan xaaladina cidbaynta halka soo fadhiisata kama sheekeynayso waaba shan baa lagu leeyahay inaan nidaan dagaal baa dhacay anagoo heshiis soo qaadanay sabab ay u noqonaysana anigu garan maayo wallahi I don't know laakiin waxa idin sheegaya shalay ta dhacday berri toolaaf casay imanaya ragaasi waa federaalki weeyaan maaha canfar waa federaalki oo biyuurkii sitay oo ma aragtayna ku wiinay dhadhaadinaya federaal ba calankiina la hoos geenaya la yiri in ay ma aragtay xoolo 200 oo abaaf 200 ka badan inay niga qaataan oo ragna niga xidhxidhana awaash geeyaan iniga ayay daciifnimadiina la arkay
daciifnimada ayaa la arkay oo shacabku isdifaaco loo dhan waayay raggii iniga mas-uulniga ahaa meesha aad dhigateen ee tiraadeen ee dhaariseen ee niga madax ahaa ee mas-uulniga ahaa shalay intay lacagan igu soo qaateen guryahooga iska fadhiyaan ay siyadu ku socdaan inigan xoolihiinni la hor dareersada inigii xoolihiinniba isku kiin darsado xaalka iniga isku geystay waxa isku geysatay maad aragteenay shacabka gobolka city shalay toolana waxa ooyay degmada Shiniile ooyay soo lahayd annaga waa maasantahay annaga maad aragteen ay shalay toolana annaga tacadi waxa nagu haya ina dambeel inuu komishineerka laga soo calaacalo shacabka weeyaan ducafaagu waa shacabka hadduu shacabku kir wid iska odhanayo waxaasoo dhanima gaadheen iniga halkaa isdhiga lax kastaba meesha isdhigtaa lagu qalaniyo marka isfahma ilaa aad isfahmaysaan 40 odaya meesha jooga ee maad aragtay salaanka ka dhigtay qoladii maad aragteen ay barbaartii inta barbaartii halkay ku dambaysay ma isweydiisan barbaarta halkay ku dambaysay barbaartu ilaa iminka daasadi yaraabay dul fadhiyaan isbedelkan maantana ayagaa keenay waxay u keeneenna waxay ahayd dadkeenna iyo dalkeenna ayaan anfacayna laakiin iyaga waxaa la yidhi adeereel fadhiistalkeenni naqaanaa baa la yidhi waxaa ka mid ahaa odaygii daahir wallo halkuu ku dambeeyay daahir wallo waa ka kala meermeerin ee la caydhsanayo ee haddiiba la xidhinba hadduu afka ka hadlo uu yidhaahda isbedelkan dadkii u horseedaan ha dadkii lagu xidhaan ha dadkii maxay meesha waxa jooganiyo yaana nila sheegin oo la odhan maad aragtay isbedel baa dhacay isbedel dhacay ma aragno heegadii baa sidii u fadhida heegana dee maad aragteenay xilligii maad aragteen ay heega ay joogteen waxyaalahan oo kale inayna dheen dadkii maad aragtay diiday ilmaadeeradood ka soo horjeestay waryaa war dhaadhacay dhib u ahaa daahir wallo war meesha ka tag waryaa أنا إن أديركي تهو كاقبنا يضدك ددك يريبو هادا يرولو ما أنتنا الماديرني ما حكومة دل يسوف أنا وينيغا أركي إن وزيرة دا قار وحي سوق ريان إليهين هدي ما داركتين قار إسكو ما داركتين إسكو يعني رونتا كاهلان أناقا الماديرني ما كنت فاعلنا وحرولا دهاي ما تشرتي حبسك كو وضا أدي ريال ماشا وضا قلا اللي ليهيد أركيسان وماشا عاد إنيغو عاد وجيدان إندين مقابني waad arkaysaa xildhibaanadii baa soo maad aragteenay kan nabadgelyada maad aragteenay ma isoo sheey hoggaanka nabadgelyada deegaanku wuxuu yidhi dadka maad aragtay dhibka wada waa 2 qof ama shacab un bay noqon kartaa 2 qof oo shacab ama 3 qof tacadigii iyo maad aragteenay isduufsigan iyo leetay awood isku sheegan ha laga joojiyo shacabka ninka sidaa yidhi waayo waa maad aragteenay kan nabadgelyada deegaanka weeyaan waa hoggaanka nabadgelyada deegaanka waxa sidaa odhanaya marka heer waxa la gaadhay in la isku jawaabo oo jawaab la iska siiyo qaarna ka dhiidhiyaan shacabkan tacadiga lagu hayo iyo maad aragteen qasabka lagu hayo ila qasabka lagu hayo maad aragteen qaarna waa qaar ka dhiidhiya qaarna waa qaar ilmaadeertanimo iyo qabiil meesha u fadhiya marka waad arkaysaa waa wasiir Faaruq cid garanayna ma jirto marka inuu yiraahdo maad aragteen halkaaba ku soo qarowaa ka ma wax la masixi karay ma social media baahsanta waxaan anigu samaysanayana maaha marka waa inaad ogaataan dadkani halkay ku socdaan iyo halka loo socdo waa meel aanan halkan ahayn isbedel iyo horumarkan laga sheekanayo nabadan laga sheekanayo waxba kama jirto deegaanku xaalad khatar ah ayuu ku jira oo in la iska ilaaliyo ah nin kasta beedkiisa inta loogu yimaado laga afduubsanaya waad arkaysaan ciyaalka yaraa dhalinyarada yareed jaamacadaha dhiganaysa daraatole in maad aragteen intii la yidhi guri kiraan ku dirsano markii uu yaabo soo baxayna qabla siiye la soo xidhay maad aragteen ilaa degmoodii lagu keenay waxaan degmada dambal baa la keenay wiilkii yaraaye Subeer ee la xidhay marka waxaan ii sheegayaa dadkan hadda muxuu ka hadlay isagu ka yar musuqu ka hadlay waxa maxaad musuqa uga hadlaysaa maxaad baraha noo keenaysaan haniga nafaqaysan oo niga dhiigaysan wali 7 sano noomay gaadhin weeyaan waxa la isku xidhayaa marka waxa weeji in dadkan laga kala qabto dadka isku ogyahay madaxweynuhu dadkan la iska xidhxidhayo dadka la iska qabanay marka uu social media intuu soo fadhiisto anu nin hadii la dilo mas'uul kama yihiin ninka id weeyaan qayr mas'uulnimo weeyaan nin idil oo la dilay anu mas'uul kama yihiin laakiin wixii lagu dilaan doodana sidee baa loo dili bade maxaa keenaba hadallada jilicsan ay arkayaan waxa weeji afar ilmaadeerti intuu adeegsado dadka soo dubsa alxamdulillah rabbil alamin laakiin in aad adigu uun iskhashiftid oo maad aragteen carabkaaga uun hadalladaasi ay ka soo baxaan wuxuu shacabka ama dadku ka samaysanayaan ay noqon ilaahay baa mahadda iskale ku soo bandhigay waxa tiido laakiin waxa rajaynayna markii adi lagu halgamayay in la lahaa hal la keen madaxweynaha aan lahayn shaarka inta iska bixina ku laabtumanayna lahayn maad aragteen isbedelka ha imaado Mustafa Umar waxa
soo qoraysid farahaagu wuxuu qorayaan baad nagu shaxaada laakiin aad baad u maadsantaa ku odhan lahay midda kaleeto ku darsada oo gobolka city baa la hadlaya anigu dhammaan waxa ummadda maad aragteena gobolka city joogtaa cidnii maqan ma jirto ilmaadeerayaal waa inaad fahantaan deegaanku isagaa is xoreynaya dadkaana reerahoogaa soo furfuranaya laakiin free baa leen reerahooguna way fahansan yihiin waxaan uu mustafa wado ayagaa maad aragteena isdifaaci doona shacabku iyagaa isku sar u kici doona laakiin waxaa idiin sheegaya inniga gobolka city dhalinyarta shalay nagala soo xidhxidhuusa barikow ka yahay inanka halkaa saaran ee cabdilaahi laba ka yahay odayaal badan oo weliba 4 ilmaadeera ah maalin quraata intii la xidhay 5 sannadood baaba loo jarayba waarneegii 5 sannadood ayaaba layidhi waa midabo waashayba waa ka maryaha daadiye degmada handhagaaluu jooga maryihiibu badaadiyo hadda waxay ma sameynin midna waa maad aragteen odaygan guddoomiyaha ka ay soo sheega xasan qalille ina qalille wuxuu yidhi ba in adeerkay baa tee meesha ka carar adu nin sacad musaatee 4 walaaldoona reer baxarana waa la xidho midow waashayba 5 sannadood baana loo jaray maad aragteena waa nin marka waxaan idiin sheegayaa innigu gobolka city horta waxay noqotay teedu siyaado wax aanan weligeed la arkin oo la maqlin baa meesha ku jira musuq kama hadli karaysid horta adaa ku raamsanayna dhalinyaradu hadday wax iska qoraan ay diidaan qofka waa diidnay yidhahdin waa la xidhxidhaya gobolkan maad aragtay shaniile waxa commissionku dadkuba dul marinaya islaani oday indhalay iyo waxa loomaba joojinay adeer waa dul marun weeyaan oo dadka dil cid maad aragtay kaala xisaabtamayso ma jiro oday meesha soo joogsana kaala xisaabtamay ma jiro odayaasha shaniile degana ma rabbuka dilira oday bay ku abtirsanayaan ay leeyihiin oday hebel baa anaga nalaga sujuudo salaada iyo imaamku hadduu khaldamiyo hadduu samic allah yidhaahdo hadduu iska sujuudo baan ku daba tukanayn waxba nagama gelin waxa kale afar iswataa isku sacabaynaya marka iniga waxa niin muhiima shacabku intuu ooyayo uu maad aragtay calacalayo bartaa kasoo calacalay ma fiicne intaad ka kacdaan inaad banaanbaxyo samaysaan adeer inigaa maad aragteena iskale wadanka dhulkan iyo ciidan iyo calankaba inigaa iskale looma baahna inaad ooydaan inaad laabta tumataan ood xaqiina soo dhacsataan baa loo baahaya dadkan shacabka inay isbadbaadiyaan oo maad aragtay ka kacay siduu nin federaal intuu yimaado bartaad inigu joogtiin xabadayntu nila dhaca niga qaadanay raggiinii xoolihiin waa daciifnimo iniga nigala arkay siiba hoggaankiinni iyo odayaasha iniga nimatalaay nigala arkay waxaan arkay dhalinyaro maad aragteen adisaabo joogto oo aniga imatasha oo idinka nimatasha oo dadkii dhintay matala oo maad aragteen maanta taagan xataa kasoo hadlaynin baa jirta dhalinyarada beritoole hadhowtoole iniga halgamaya ayay nagu dul cudi doonaa war dhalinyar kasti oo iniga nimatasho oo wixiina soo xaqdhi weyd inaad gado out aad raadin weeyaan naga baxnama matashida niyaanan isku salaaxin hadalkan lagama sinaysto bartidaa loogu yimaadaa hadal kastiba xaalad waqti waxa taagana inaan is xoreyno in aan federaalka maad aragtay inta imaadiin guryaheena naga qaadanay xoolaheena xaq miyaan u nagu leeyihiin ilaan xaqa Soomaalida la dhacay ilaan dadkan Ethiopian ma nihin Soomaha Ethiopian ma nihin daha maadaama oo dadkii federaalka laga soo dhaadhicinay inagu Ethiopian ma xoolaha soo dhacaysaan Ethiopian ma aqalada inta u gashaa soo xoolaha Soomaalidu Ethiopiadu waxay aragtay xaraam bay u aragtaaba waa in laga qaadaaba nin Soomaali xoolo wato waa in laga qaadaa xoolo dhaqatada maad aragteen masaakiinaha shacabka Soomaaliyeed intay soo barakiciyeen intii hadhay hadana xoolahooga looga daba imiday miyaanan maad aragteen in loogu yimaado guryahoogii oo lagala baxo xoolahoog taasi waxay ku cadeynaysaa inaad muwaadin ka tirsan Itoobiya aanad ahayn aad tahay maad aragteen dad maad aragtay loo dhiibanayo una xoolaha